taariikh fil weyn oo da' weyn oo guun ah ayaa dadka Soomaalida ay leeyihiin laakiin nasiib darro waxyaabaha laynaga bilaqaystay ayay ka mid tahay hantida aynaan war u hayn oo runtii haddii ogaalkaas uu nagu badnaan lahaa aanu hayn lahayn wax badan oo shida baan ka badbaadi lahayn ama khilaafa oo dadkeennii ku dhacay taariikhda sideedaba waxa weeye study of human past bani aadanka tagtadiisii oo diraaso lagu sameeyey oo sideedii loo soo naqliyay baa taariikh lahaa taariikhda waxay gashaa dhaqaale taariikh ciidan taariikh haddii xataa guurka ya hebel oo taariikhda galay waxaa lagu leeyahay hebla buu qabay oo oday hebel dhalay ama meel hebel gobol hebel ka soo jeeda xataa guurka taariikh buu noqdaa taariikhdu marka waa tagtadii oo fact dhaba aan laga been sheegin behavioral history waxa la dhahaa jira waa dhacday laakiin sida ay u dhacday adiga kuma qanacsan hadda qanaacadaadi dhacdadan dhacday waxba ka bedeli mayso waa dhacdo ka horeysay sida darteed taariikhyahanada qaar baa waxay yeelaan sidii ay jeclaan lahaayeen inay u dhacdo bay ka dhigayaan dhacdadii waa false gareynaya taa iyada taariikh ma waxa kale oo aanan taariikh ahayn dhacdada dhacday baan mesela la haya oo aan jeclahay sida ay u dhacday waa soo min guurinaya waan ka badbadinaya marka ziyaadan ku daraya iyadana taariikh ma taariikhda wax qofku uu jecel yahay ama uu neceb yahay maaha waa tagto hawl dhamaato buuxsantay waa ku dhaaftay example dawladdii Soomaaliyeed ka caanka ahayd 20 sano yay dalka ka talinaysay nin jecel iyo nin neceb ba 20 ka sano waa xirantay bilow bay lahayd dhamaad bay lahayd waana dhaaftay marka in la diraaseeyo oo la barto wixii wanaagay lahayd iyo wixii xumaan ay lahayd maslaxad bay u tahay jiilasha Soomaaliyeed dambe waayo waa taariikhdoodii laakiin khalad ayaan lahayn dusha kama saari karo amaan ayaan lahayn dusha kama saari karo Soomaalida taariikhdeeda marka la eego waa aadamigo dhan bay la mid tahay afar qaybood baa loo qaybiyaa qaybta koowaad waxa la yiraahdaa prehistory ma qabla taariikh wixii taariikhda ka horeeyay oo maxay yihiin waxa weeye taariikhda ama sheeko lagu hayo ama qoraal lagu hayo wixii ka horeeyay macnaha sheekana laguma hayo qoraalna laguma hayo sidee baa marka loo ogaadaa waxa loo ogaadaa culimada archaeologistayaasha yaa dhulka faaga meel degaan raad bay helayaan raadkii bay daba galayaan magaaladan bay aakhirka helayaan u dhaadhacayaan oo lagu noolaa weelashii dadka ay ku noolaayeen bay eegayaan weelashaas iyo haddii alla kuuran yahay qaabkii ay wax u karsan jireen qaabkii wax u cuni jireen qaabkii wax u sheergareyn jireen waxaas baa la baaraya 40 sano ee la soo dhaafay waxa horukac weyn laga gaaray maadadan radiometric laho ee sheegta dating waxa cimrigoodii dherigan oo kala la helaya cimrigii uu jiray baa la helaya mesela 3,000 sano ka hor ama 2,000 sano ka hor yaa dherigan uu dadkii noolaa ay farsameeyeen maadadaas bani aadamku waxay ku saaciday wax fara badan oo humaag ay ka ahaayeen مثلا erigii waxa la helay taariikhdiisii kadib markii 40 sano u dambeeyay la helay maadadaas radiometric ah waxa kale oo la helay fikrad ah in qalabkan la helay laga dhaxbaaro ama laga niqaasho si loo fahmo dhaqankii dadkan ay lahaayeen dadkii weelashan lahaa dhaqankoodii sidee buu ahaa marka weelashii iyo guryihii iyo qalabkii ay adeegsan jireen dadkii hore baa waxa laga dhex fahmaya diraaso laga sameynaya qaabkay u noolaayeen qaabkay u xiriiri jireen qaabkay u duuli jireen qaabkay waxyaabahaas oo dhan marka taariikhdaas aan raadkeeda qoraalka lagu hayn ee aadka u fog baa waxa la yiraahdaa prehistory geeska Afrika oo aan ku dhaqannahay
prehistorigiisa wax badan lagama baarin sababtuna waxa weeye xilliyadan dambe oo la helay qalabka fiicanna dagaallo iyo colaad joogto ah baa Soomaaliya ku socday xilliyadii horena xilligii uu gumaysigu jirayna laba nuqsaan baa jiray dhanna waxay ahayd iyadoo aan qalabkii fiicnaa oo hadda la haysto aan la haysan dhanna waxa weeye maamulkan gumaysiga inoo yimid markuu wax baarayo ku salaynmeen wax cadaalad raadinmeen wax sax raadinmeen wuxuu raadinayo wuxuu u kaashado maamulkiisa iyo siyaasaddiisa gumaysiga ahayd sidaas ayaa prehistory taariikhda prehistory ee Soomaaliya ay u dhantaalan tahay laakiin intii yaraydoo lagu sameeyay baaritaanka waxaa la ogaaday wax aad iyo aad u qiimi badan baa laga ogaaday geeska Afrika waa dhulka Soomaalidu ay ku nooshahay nin la yiraahdo Maraykana Steve A. Brand oo Florida University macalinka ah oo ragga tirada yare wax baaray kamid ah wuxuu yiri in wax laga ogaado prehistoryga Soomaalida waxay faa'iido u tahay dunida oo idil ayay faa'iido u tahay in Soomaaliya prehistorygeedii si fiican inta loo baaro wax laga ogaado sababtu waxa weeye geeska Afrika waxay kamid tahay ama waxayba tahay meeshii u horeysay oo basharka uu ka unkamay aadamiga meeshuu ka unkamay iyadoo Afrika la isku raacsan yahay in aadamigii ugu horeeyay qaaradda Afrika uu ka unkamay ayaa bariga Afrika misana waxay tahay meesha la isku raacsan yahay in laga yimid qarnigii 20aad bilowgiisa ayaa Soomaaliya baaritaanka prehistoryga uu ka bilowday sidaan soo sheegnay wuxuu ahaa mid la xiriira nidaamkii gumaysiga ahaa nin la yiraahdo isna aqoonyahan ah archaeologist Cambridge University wax ka dhigi jiray Clark J.K. la dhaho 1952 wuxuu qoray book la yiraahdo Prehistoric Culture of the Horn of Africa buuggaasna wuxuu ahaa sheekooyin bidaa'iya tallaabadii ugu horeysay oo Soomaaliya prehistorygeedii lagu baarayay wuxuu xusay dadkii ugu horeeyay ee halkaas raadkoodii la helay inay ahayd 100,000 oo sano horteed xilligaas oo loo yaqaan Upper Preistocene waxa kale oo jiray abuur dadka ka horeeyay wax Ilaahay abuuray oo dadka oo kala ah ama xayawaanada oo dabar go'ay aadamiga hortiis noolaa theory-gii ahayd evolution-ka dadka inuu isu soo bedbedelay ilaa uu marxaladda yar yimid markii dambena uu dad u bedelmay theory sax maaha oo aad ba maaragtay waxa diidaya xataa biology-ga caruurta aan iskuulka ku ugu dhigno xeerarkiisa dhaxal curiyaha ah baa diidaya cunsurka dhaxalka sida waa cunsur xiran waa qafilan yahay ma dhici karo unuga isaga DNA-giisi in uu u boodo DNA daayeera ama xoolaa ama DNA-gu dadkuna waa mid xiran DNA-ga daayeertuna waa mid xiran kan lo'duna waa mid xiran loo kaliyu ku qafilan yahay lo'da aabaha iyo lo'da hooyada ilmo lo'aba iska dhalaya ma dhici karto ilmo ariya ama geela inay iska dhalaan waa xeer xiran weey qof faraha la geli karaana ma jiro hadduu xeerka halaabana wax nasakhan bay noqonayaan waxa nasakhanna ma tarmaan nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wax nasakhan ma tarmaan waa qaanuun biology wax nasakhan ma tarmaan sidaa darteed cudurrada DNA-ga dadka qaba cudurrada DNA-ga cudurkan la dhaho Downism oo kale iyo wax ma dhalaan dadka wajiga shiinaha yeesho dhareerka ka doo curyaanada camala wax ma dhalaan sababtoo DNA-goodii baa jiran DNA-gu marka haddii khalal ku yimaado waa xirmaya oo isxiraya xataa ilmo dhalimaayo maaragtay bani aadana sidaa darteed waxaan raadkooda la helay
oo iyagoo lafa ah dadka ka horreeyey waana la ku wareershay inay dad ahaan jireen laakiin dad maaha dadku nebi aadan baa u horreeyey ilaahay subxaana wa tacaala baa noo sheegay isagaa uumay markuu uumayna xaawuu feertiisii ka uumay xaawaa laga soo tarmay halkaasoo aadamiga noloshiisii ka soo bilaabay wax arrintaa beeniya ilaa hadda lama hayo wax ayida maahe sidaa darteed waxaan lafahan la helay ee gadaal laga helay waa wax dhulka laga helay wixii waa abuur ilaahay abuuray marka meesha rabtid lama aadi karo xaq uma lehid inaad meesha rabtid la aadid aad tiraahdid awowayaasheen saanaya suuragal ma waayo sayniskii baa ku diidaya arrintan muddana lagu wareeriyey laakiin waa la joojiyey markiiba waa socon weyday waxaan iyaga waxa weeye wax ilaahay uumay ee aadamiga ka horreeyey magacyay u bixiyeen hadba si u kala waaweynaayeen Hemorrhactus Hominidis Homo sapiens magacyadaasi u kala bixiyeen raadadkoodii ugu horreeyay geeska Afrika iyagana laga helay muddo laga joogo 1 milyan iyo bar lafa daayeer oo cimrigoodu yihiin 1 milyan iyo bar ayaa waxaa laga helay dhulka geeska Afrika meel u dhaxaysa xuduudda Cafarta iyo Soomaalida milyan iyo bar daayeerka isaga Hominidis weeye 1979 yaa la helay bariga Harar bariga balliga Turkana laho bariga dalka Kenya waxaa la helay raad inay nolol ka jidhay 2 milyan oo sano horteed 2 milyan waa bariga Kenya oo dhulka Soomaalidu degto waa bariga Harar iyadana Soomaalida degta bariga webiga Turkana intaba waxaa laga helay 2 milyan oo sano horteed in ay nolol ka jidhay nolosha iyada ah ee noolalaydi noolayd waxay adeegsan jireen dhagxan casrul xajari stone age waxa la dhaho dhagxan bay adeegsan jireen dadka iyaga kan Hominidiski way daayaradaas lafahoodii la helay laftii markii la helay markii hilib loo yeelo saanayo ekaanaysa arrintan waxay marxaati u tahay noloshii u horreysay in geeska Afrika ay ka abuurantay taa iyadaana dadka Soomaalida sharaf bay u tahay waayo taariikh dheer ee aadamiga iyo noloshaba la bilaabatay bay ku abtirsanayaan maaha dad shalay galab ka yimid maaragtay meel dhow aan raad lahayn oo sida la sheego ama nala ka dhaadhiciyay raadka dadkeena ilaa iyo xilligaas dadku xilli wuxuu soo maray marka uu godad ku noolaa guri muusan aqoon uma lahayn waa basharka aadamiga waxa la adeegsan jiray gurigii waa qarkaas godka weelkii dhagax baa laga samaysan waxa lagu dilayo bahalada oo lagu ugaaranayo waa dhagax waxa haraga looga siibayo waa dhagax dhagaxantii la adeegsan jiray sidaan bay u ekaayeen akaasa waa lagu mudayaa neefkii markuu dhinto kaasa lagu haragsiibayaa sidoo kale inta weelasha dhagxan bay ahaayeen waxa yaab leh in magaalada Hargeysa dibadeeda laga helay warshad dhagxanta qori jidhay casriga Stone Age-ka warshadii ugu da'da weyneed ilaa hadda la hayo waxa laga helay geeska Afrika gaar ahaan ee magaalada Hargeysa dibadeeda Soomaaliya waxa laga helay dhagxan qoran oo 100,000 oo sano jira dhagxantaasi waxay ku badan yihiin magaalada Sheekh iyo Berbera dhexdeeda toga nugaal 200 kiiloomitir ayuu dhererkiisu leeyahay afkiisa ugu dambeeya wuxuu ku dhacaa degmada Ayl waxa fadhii jiray Achelian reer kala dhaho oo kamida beela kamida Homo erectuska beelahaasi waxa la rumaysan yahay inay ahaayeen kuwii bilaabay in Homo erectusku ay kaluumaystaan badda inta u dhawaadaan kalluunka xeebtu ku badnaa dhagxantaasay ku mudayaan kalluunkii aqoon kale lama lahayn taariikhdaas prehistoriga ah
dhammaanteed waxay daliil u tahay haddii si fiican loo sii baaro wax badan oo aadamiga adduunka ku nool oo dhan faa'iido u noqda oo aqoona oo culuuma oo raad fiicana in la heli lahaa laakiin nasiib darro annaguna dad aqoontaale oo waxbaara yeelan weynay dagaalkii sokeeyana wuxuu mamnuucay iyo dowladdii 20 sano ka horreysay askarta u talinayeen aan ogolayn in maaragtay dhulka la farafareeyo waxa jaaniba ay yimaadaan intaaba waxay mamnuucday oo yaraysay in Soomaaliya bari historygeedii wax laga ogaado bari history markii laga yimaado aadamiga ilbaxnimada curiyay kuwooda ugu daaweyn waxa kamid ah boqortooyadii ay iska dhaxdhaxleen qoysaskii reer Fircoon waa kuwaana dadkii hore aqalkoodu saasoo ah lafo iyo dhagxan la saaray iyo harag la huwiyay bay qaadan jireen reer Fircoon Masar ayaa waxa ka curatay weligeed meesha biyaha leh iyo ilbaxnimada iyo nolosha ka bilaabata masaaridii hore waxay curiyeen ilbaxnimo aadamigii ka horreeyay oo dhan ay maaragtay ka talaaba dheereeyeen boodo weyn bay sameeyeen waxa yaab leh ranjigi ay sameeyeen dadka ranjigi ay sameeyeen oo ay derbiyada inta ku dad ku sawireen hadda ninkan askariga maracad buu qaba go'ad halkaasna waxa uga lusha wax kale midab yale calooshana wax midab yala uga xiran gacmaha muruqa iyo qoortana sidoo kale ranjiga ay xilligaas sameeyeen dhowr kun sano ka hor guduudka ilaa hadda waa guduud cadaanka ilaa hadda waa cadaan dhowr kun oo sano maanta gurigaas ranjiyeysid 2 sano kadib waxaad u baahan tahay hadaadan ranjiyeyn boor iyo wasakh baa fuulay hadduu 10 sano gaarana midabkii oo dhanba waa tirtirmaya marka xadaaradu waxay dadkaasi curiyeen lala yaabo aadamiga aad u la yaabay reer Fircoon waxay lahaayeen ilbaxnimo cimrigooda waxay jireen 3000 oo sano 3000 oo sano bay socotay dawladda ay dhiseen 3000 oo sano waxa loo qaybiyaa dawladihii hore dawladihii dhexe iyo dawladihii modernka ah casriga modern marka la leeyahay Roman Empire waa ka daaweynta waa ka horreysay laakiin labadii dawladood oo ka horreeyay yay modern u tahay dawladihii hore 6 qoys bay ahaayeen qoys kastana intaasoo qof oo rag iyo dumar leh baa soo maray xukunkooda markaasuu qoyska ka wareegaya qoys kale u wareegaya marka 6 qoys ayaa iska dhaxlay dawladdii hore ee faraacinada ahayd dawladdaasi waxay curatay 2800 oo sano ciise horti nabi ciise calayhi salaam dhalashadiisii 2000 baa laga joogaa xilligaas 2800 oo sano ka hor macnaheedu waxa weeye annagu hadda waxaanu ka joognaa 4800 oo sano yaanu dawladda ka joognaa bay curatay dawladda iyada ah waxay ku caan baxday xasilooni nabadgelyo horukac curin dhaqaale haramkii ugu horreeyay iyagaa dhisay saddexda haram muuqda maanta ramziga oo faraacinadaba qaahira ku dhaxyaal haramka Khufu iyo Khafra iyo Mankawara saddexdaba iyagaa dhisay dawladdii dhexe 10 qoys bay lahayd 10 qoys baa iska dhaxlay iyadana dawladda dhexe dawladdii hore 3200 ilaa 2800 bay jirtay ciise horti dawladdii dhexe 2800 ilaa 1725 ciise horti bay jirtay dawladdii dhexena adigu 1725 ilaa iyo ay soo baxeen xadaaradii Greega bay jireen dawladdii dhexe 10 qoys bay ka koobneed badana cimrigeedii waxay ku dhameysatay fawda iyo dagaal daakhiliya dagaalka daakhiliga ah oo ay isku cunayeen dadkii faraacinada ahaa
markuu qabsaday waxa ka faa'iideystay Hexus nimankii la dhihi jiro Falastiin deganaa iyo nimankii Nuubiyiinta ahaa oo madmadooba ee koonfurta deganaa labadaas qolaa ku duuli jiray maadaama ay daciifeen wixii daciifa faraha la gelinaya si joogta baa loogu duuli jiray adigu mar dambe waxa uu kacay nin la yiraahdo Mantuuxat athani Mantuuxadkii labaad ninkaas mideeyay wixii kala daadsanaa dadkuna markuu midoobo xoog buu noqdaa aqligooda midoobaya cududooda midoobaya dhaqaalahooda midoobaya wuxuu ceyriyay nimankii Hexuska ah iyo nimankii Nuubiyiinta ah kadib waxa yimid dawladii saddexaad iyadana waxay ahayd ilaa iyo 9 qoys sidii tii hore dawlad xasilooni iyo nabadgelyo iyo horukac curisay bay ahayd saddexduba marka xiriir bay laba xiriirna la lahaa tii hore iyo tii dambe kuwii ducafada ahaa wa xiriirana lamaanan lahayn waayo awoodii dhaqaalaha yaraatay awoodii ciidan baa yaraatay awooday nagu soo gaaraan ma yan lahayn sidaa darteed xiriirkii aanu la lahayn faraacinada waqti buu kala go'ay waqtiga uu kala go'ay dadkii geeska Afrika ku noolaa waxay ilaaween in xiriir uu jiray Masar ay la lahaayeen sidaa darteed way la yaabeen qoladan dambe u imaanaysa aad bay ula yaabeen qoladii hore ninkii ugu xoog weynaa oo soo booqday wuxuu ahaa Khufu boqorka laho waa nin caan ah haram weyn buu ku leeyahay waa kuwaana sawiradii ay ka tageen kulli waxay sheegayaan shaqooyinkii dadka ay qabteen hadday tahay beerfalid hadday tahay qalabka lagu falayo hadday tahay badarkii oo la hagaajinayo Khufu sanamkan buu leeyahay dhererkiisu waa 146 mitir iyo bar ninkaasi wuxuu ahaa ragii ugu caansanaa dawladii dhexe Khufu Soomaaliya aad buu xiriir ula lahaa waxa la hayaa wiilkiisa wiil ina Khufu ah doon uu la socday waxa la socday nin Soomaaliya oo la yiraahdo hortiisa waa af Soomaali erey aan isticmaalo weeymaan ninka Soomaaliga ah waxa la mala awaalaya inuu ahaa ninka tusinayay wadada ganacsiga doonyaha ganacsiga oo ina Khufu uu soo raacayo ku imanayay Soomaaliya wiilka hortiisa la yiraahdo yaa la socday dawladda iyada ah casrigii ay si baabi'i rabtay waxa dhacay weerar oo aad bay noo soo weerareen isagu ganacsi buu noogu iman jiray faraacinadu isku mid ma ahayn qaar ganacsi bay noogu iman jireen qaar waxay noogu iman jireen bililiqo maadaama ay xoog lahaayeen inayna bililiqaystaan oo xeebaha intay yimaadaan khayraadka dhulka daldashaan sidaa darteed dagaaladii adduunka ka dhacay ee taariikhdooda la hayo war of the history of the war book la dhaha jira wixii dagaal adduunka ka dhacay buu qoray dagaaladaas dhowrkii ugu horeeyay mid kamid ah Soomaaliya ka dhacay waxa ay faraacinadii baa soo qaaday oo weerar nagu soo qaaday waa dawladii hore markay dabayaaqadeedii haraamaadka ay dhiseen waa kuwan ilaa hadda baaritaan lagu hayaa waxa yaab leh dhagaxa ay isa saareen wax shaminta u dhaxeeya male maca dalika waa isku malaasan yihiin waxa kaloo yaab leh halkii dhagax intaasoo tan way okay intaasoo tanwiish ma jirine dushaas kuwa saaran yaa geeyay waxa kaloo yaab leh deegaanku dhagax male waa saxara meeshay ka dhisan yihiin piramidka waxa ugu dhow dhagax intaasoo kun oo mayl wax u jira seebay u soo qaadeen waxaasoo dhan waa culum la wareersan yahay maalinba mala awaal waxba la mala awaala saastay yeeleen markii fikradda la dhaco fikrad kale cusub ba hadana soo baxaysa wartana ka sahlan saana yeeleen marka xadaarad waxay ahayd runtii cajiiba faraacinadii dhexe nooma ayaan imaan kuwii dambe waa ay noo yimaadeen wax badan bay noo yimaadeen
gabadhan baa ugu caansan xilligii ay boqorada ahayd Hatshepsut baa la yiraahdaa waxay u soo didhay deegaanka rixla aad iyo aad u ballaaran rixlada iyada ah waxay tiri ilaaha amoon la yiraahdo ilaahyo khuraafiye aaminsanaya ilaaha amoon la yiraahdo ay soo waxyooday ninuu jecel yahay baa boqorka abay tiri geeska Afrika sidaa darteed ninkaas inaan rixlad u diro aan xiriir la samaysto baan maaragtay leysoo waxyooday rixlad xoog leh bay soo didhay rixlada iyada taariikhday gashay runtii rixlad weyn bay ahayd sawiradii oo dhan waa la hayaa iyagoo ka soo baxaya Masar teeda kale waxay sameeyeen nimankan faraacinada dawladii saddexaad markay koonfurta Masar bay ka asaasantay waxay sameeyeen webiga Niil iyo badda Cas bay isku xireen kanaal lamida kanaal Suez labada bad buu isku xiraa iyagu waxay isku xireen webigii Niil iyo badda Cas sidaa darteed waxa u sahlanaatay transportkii biyihii webigay soo raacayaan baddii bay ku dhacayaan toos waa soo degayaan waxay imanayaan Soomaaliya sawiradaas waa la hayaa oo museumkooda hadaad gashid runtii waa la fajicaysaa waxay hayaan markay yimaadeen xeebtii iyagoo lagu soo dhaweynayo waxay sheegayaan dadkii ay halkaan ugu yimaadeen dharka iyagu ay qabeen dhar ka fiican inay qabeen hubka iyagu haysteen hub ka fiican inay haysteen taa waxay daliil u tahay xadaarada adduunka kuweedii ugu da'da weynaa inay halkaan ka curatay laakiin dadku waa sheegtaan wixii ay hanti u leeyihiin nasiib darra anagu wali waa sheegan laanahay arinta iyada waa soo dhaweeyeen markay soo dhaweeyeenna waxay siiyeen hanti aad iyo aad u fara badan doonyihii oo dhan baa loo buuxiyay waxa looga buuxiyay xoolo ugaar malab hadii alla ku roon yahay beeyo yani wax ay la fajiceen baa looga buuxiyay runtii boqoradaani waxay tiri hadaladay ugu khudbaysay markay soo laabteen waxay tiri waxaad ka timaadeen dhulkii aabbayaal iyo awoowayaal arinta iyada ah waxay daliil u tahay in dadkaasi ay halkaan ka tageen ilbaxnimada xagga ka curatay dad sheegtaa lala yahay halkaanay ka bilaabatay markaasay guudhe halkaa tagtay waa ay ku mira dhashay nasiib darro waxa weeye waxaa la yiraahdaa halkaasay ka curatay waayo dad soo jeeda oo dagaalamaya oo wixii dhulkii faganaya oo baaranaya oo ku faanaya baa jira laakiin halkaan tuulo u gudbaysaa ma jirto maxaa wax la sheegta tuulooyinkii baa xuduud caalamiya noqday international mardo visa la isweydiinaya subhanallah markii ay baaba'day boqortooyadii reer Fircoon kitaabka quraanka wuxuu noo sheegayaa xeer la yiraahdo sunnatul تلك الأيام نداولها بين الناس سنة المداولة هذا القرآن كوحنا نروى وذا حرر سيودنيهن حرر عالمي وي آيات سوحي نور شيء سنة اللي هذا سنة المداولة إلهي سبحانه وتعالى حرر كونورش أو تلقلي بيكمت وأبد ويل يرأهي أبها ونولا أو ننأها أو سعودي أو أردي أو شغيني أب بوسكي سيادة قليه waayo isagaba awooweebu booskiisii qaat xilli buu leeyahay adaa imaanaya xilli baad leedahay wiilkaagii baa imaanaya tilka al-ayaamu nudaawiluha bayna an-nas dagaalkii Uhud kadib bay soo degtay aayaadka iyaga markay asxaabtii fahmeen wixii guula ay gaareen ilaa rasuulkii uu ka dhintay kaleey salaam ilaa khulafadii ay ka dhinteen fahamkii aayaadkaas fahmeen way sidaas qofku oo qofka kale u mudaawaleeyo yaa ummaduhuna ay isu mudaawaleeyaan xadaaraduna hadba meel bay ka curanaysaa hadba qola buuxinaysa booski waa gaboobaysa qolo kala iimaanaysa faraacinadii haday jireen xilli bay qaateen sunnatul mudaawala waqtigii baa ku yimid waxay u guurtay xadaaradii South East Europe Greek
meesha cad waa badda Mediterranean-ka halkaana waa Africa Libya iyo Masar qofkii geographiga wax ka garanaya baddii caseed wataasa Black Sea waa ka inta cagaaran baa waxa ka abuurmay xadaaradii Greek xadaaradda iyada ah 750 ciise horti ilaa 149 ciise horti nabi ciise alayhi salaam dhalashadiisii 750 sano hortiis bay abuurantay waxay soo jiitantoo soo jirtay ilaa nabi ciise 149 ka hor dhalashadiisii xilli marka waxa jira ay hana qaaday xilliga isaga waxa weeye 500 ilaa 300 classical Greece bay dhahan yani xilligii taariikhda Greega ay classicada noqotay meesha standardkii ugu sareeyay ay gaadhay waa xilligii ay u kaceen nimankii abwaanada ahaa oo filosofiinta ahaa oo culumta bani aadanka oo dhan qawaacida ka dadajiyay Aflaatoon iyo Socrates iyo raga iyaga Aristotle iyo baa u kacay fikradahoodii marka waxay curiyeen in dawlad ballaaran ay sameystaan dadku markuu waaci noqdo buu fahmaya mujtamacu in loo baahan yahay inuu is haysto oo ilmahan guriga aad ku haysid kaliya inaadan wax tari karin in mujtamacu iskaashaday ilmihii ay badbaadin karaan si kasta ilmahaaga hadaad ugu dadaashid so far mujtamaci uu liito ilmahaas ilma liiteen noqonaya wiil arday oo Qaahiro jooga wuxuu iga sheekay meel telefoon baan soo galo yiri sagashanaadkii bilowgeedii bay ahayd nidaamka telefoonadu waa iska liitay markaas telefoon baan diri lahaa waxaan maqlay ninkii telefoonka fadhiyay oo guri Soomaaliya nin jooga ku xiraaya London wuxuu yiri hebel takallam London macak hebelka waa nin warlooradii kamid ah wiilkii ardayga waxaan ku yiri buu yiri ninkii Masriga lacag baan ku siinayaa ninkan aan dhageystay ii furcodka oo furay de Masri maxaa ka galay ninkii wuxuu leeyahay London buu la hadlayaa heblaaya lacagtii waa soo shubay haye gabadhaydii hebla ahayd hatta gabadhii magaceedii wallahi way sheegay gabadhaydii hebla ahayd Cambridge University u raad haddii lacag kale loo baahdana waan soo shubaya waa xilligii Soomaali la jaray oo BM-ka xamar la isla dhacay subhanallah wiilka ardayga marka wuxuu yiri ninka isaga adeero wiilkii baa ay hadlaya ninka isaga gabadhiisi Cambridge inuu geeyo waa gartay laakiin gabadha yarta markay Cambridge ka baxdo meeshay ka shaqeyn lahayd waa meesha BM-ka ay ku socdo Cambridge hada markay ka qaadato qaxooti baa sugay inay qaxooti noqoto marka waxay ahayd inuu dadaalka uu gabadha u dadaalayo mid la eg mujtamaca inuu siiyo markaas ay gabadhii la rasmi ah helin Greegu marka waxay fahmeen mujtamac ahaan inay isku urursadaan association way bay sameeyeen saasay u baahan ilaa waqooyiga Afrika ilaa galbeedka Spain bay gaadhay meeshaas France weeye my France wataas halkaana Spain weeye inta cagaaran bay ka talinayeen Greegi iyaga ahaa wax badan oo dagaal ah bay galeen inay dawladda inta la ku baahsan helaan si fudud kuma imaanayo sheeka xariir dagaal xoog leh galeen dagaaladii faraha badnaa ay galeen baa waxa jirtay xilli badweynta India habeen dhaweyd waan xusaan filaya dabaylaha monsoonka lagu goosho labada xilli carabta kaliya ogaa way qarsan jireen marka dadka uma ayaan sheegi jirin nin ganacsade oo Greega oo soo safray koonfur soo gaaray baa wuxuu ogaaday dadkan inay ka faa'iidaan dabaylaha markuu laabtay arintii buu ka shifay doonyihii Greega ahaa waxay soo gaareen marka xoog ay yeesheen badweynta India badda casbay soo raaceen badweynta India inay ka ganacsadaan marka waxa dhacay geeskii Afrika ay barteen waxay barteen hantida dhulka taal si adarteed bay xiriir xoog leh noola soo sameeyeen xilli waxa jiray
تقريبا صدن سنة كدوات سديد يلاتن مية تضي يلاتن مية سنة وح كدو بي وحي فديين قردفوي مدة إيادا وحي دلدلنا ين مرودياش دنيا وين باللي مادين وحي قادن جرين مروديقا وحياب لقفكي هذا ليراهدو مرودي با كنولا دولكا وادagtaa inuu rumaysto waayo dhirtii waa ay baabaaday semi desert weeye dhul saxara laakiin waagaas dhulka dhan hawd buu ahaa dhir aad u waaweyn baa ka bax tiil dugaag nooc kasta habar dugaag waa joogay maroodiyaasha marka waxay u adeegsanayeen dagaaladii faraha badnaa oo ay ku jireen taasina waxay daliil u tahay Greegi xiriirka uu la soo sameeyay geeska Afrika daartan iyaga dhisay architecturadii ka haray way farsamadoodii farshaxankan qudheeda iyaga lahaa cilmiga xisaabaadka iyo handasada iyo waxa soo dhan waa ku horumaray waxa xigay marka cagaarkii waa batay waad u jeedaan waxa xigay Roman Empire boqortooyadii Roma boqortooyada Roma tii Greega ku xigtay waxay curatay Nabi Ciise alayhi salaam 44 sano intuusan dhalan waxa curiyay nin la yiraahdo Julius Caesar nin dictator oo gacan adag wax ku maamula buu ahaa markaan waa markii ay ugu baahsanayd isagu ma nooleen isagu markaa Greegu ku eka magaalada Roma oo Greega looga taliyay buu joogay taliskii uu la wareegay oo Roma ku fadhiyay baabalaartay magaca Roman Rome ka yimid Julius Caesar waxa ku xigay nin la yiraahdo Augustus oo kuwana Julius iyo Augustus 503 sano bay boqortooyada daa'intay ee dunida ka talinaysay Julius wiilkan Julius caruur ma dhalin wiilkan waa uu korsaday magaciisuna siiyay Augustus xilligii uu hayay Augustus uu hayay ciidan buu soo diray geeska Afrika inuu ku habsado dhulkaas hantida badan leh buu jeclaystay oo boqortooyadiisu halkaas soo gaarsiiyo doonyahaas uu soo diray ninkan dabayla ku kacay markay marayeen Tajura waa Djibouti agteeda raadkii doonyahaas waa la hayaa taariikhdoodii oo qoranna waa la hayaa boqortooyada Romaanna xiriirkaas ee nala soo yeelatay xilligii islaamka yimid marka nabiga calayhi salaatu wasalaam soo nin dhalinyaro 40 jira fartan dhalinyaro agteena ka yahay oo magaalo Maka dhul saxara ku nool wax ilbaxnimo ah ka dheer ilbaxnimadii adduunka dhan waa ka fogay buu god galay wuxuu la soo noqday aayado shana iyo dadkiisu ula yimid ay ugu horeyso iqra biismi rabbika alladhi khalaq aayadaha shanta oo la yimid marka iqra la leeyahay dadka uu iqra ku leeyahay oo akhrinayo dad wax akhriya ma ahayn waxa ka yaab badan isaguna nin wax akhriya ma ahayn sidaas diinteena inay mucjizo tahay oo diin dhaba tahay ya lagu ogaanaya adduunka horumarkiisa oo dhan waxa u saldhiga ilaa iyo maanta iqra dhibaato kasto jidha waxa looga baxaa iqra in la akhriyo abuurka dayuurada caloosha weyn oo markay fadhido jurmigeeda aad yaabaysid misana hawada si sahal u gooshaysa waxa lagu gaaray iqra nina wax akhrin wallow soo waxba ku darsan hawsha nin wax akhriya yaa curiyay iqra maanta bani aadamka wax akhriya waxay maraya human spare parts in laga raadiyo unugi baa waxa laga raadinaya maadaama bani aadamku unug ka samaysan yahay annagoo dhan aanu unug ka samaysan okay wadnaha ay xanuunay
waxa xanuunaya waa unug sooma ha baabuurku markuu kharaabo birta halaysan musmaaradeeda la eega musmaarkii baabaay ama gubtay ama waa la tuura mid kale la geliya okay waay aanu heli waayay unug wadne xagee laga helaa waxa laga helayaa unugii laga ulmay unugan laga ulmay soo wadnihii isaga ma keenin soo madaxii iyo laftii isaga ma keenin soo dhagihii iyo indhihii isaga ma keenin soo wax walba qofkan weyn ka kooban yahay unugan hore ma keenin Allah reeswer barski halkaan ku jira baaritaan baa marka lagu hayaa bani aadanka wax akhriya oo iqra aayada ilaahay amaliyan ugu taagan kuwa weyn laakiin biismi rabbik ya aayadu xaq weyn magaca ilaahay wax ku akhri haddaad ilaahay ka tagtid aqoontaada waxay noqonaysaa aqoontii nabiga uu yiri calayhi salaatu wasalaam allahumma inni a'uudu bika min ilmin la yanfa ilmi aan naafic ahayn bal dadka dhiba islaamku wuxuu la yimid xadaaradii ilbaxnimo maadaama iqra aayadii u horeysay ay tahay 13 sano buu dacwad halhayskeedu iqra yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam Makka ku dhaxwaday 13 ka sano dabadeed Madiina u gudbay 10 sano kale qaadatay جزيرة العربية ودم بيجادي اقرأ لبا بقولوا السنة كذب البحن مدي أدونك وحق عنك كوها يداتك مسلمين تا مالنتي اقرأ لبا قرن الدبادات البحن مدي أدونك وحق عنك كوها ومدي إسلام كهي إمام خليفة المأمون هارون الرشيد ويلكيسي markuu khaliifka noqday wixii kutub adduunka yiil halay keenay wixii qoraal dunida yiil waa loo keenay kulli hal turjumay yani ilbaxnimada iyo aragtida iyo hanka inta la eg buu islaamkii la yimid النهضة الإسلامية Islamic Renaissance xilligaas ay marka bilaabatay waxa dhaliyay iqra ayadii iqra ahayd Soomaali qof uga baahi badan maanta ma jiro in iqra ay ku dhaqa inay wax akhriso inta la fariisto wax la akhriyo waxaan idin kula dardaarmayaa adeerayaal inaad wax akhrisaan xadaaradii adduunka halkaan ay maanta taal librariyadeedii kutubteedii inaad wax akhrisaan oo ummadiina aad uga faa'iideysaan ma aha inaad idinka kaliya faa'iideysataan aad noqotaan qof wax cuno inta aad wax akhrisaan ummadiina inaad uga faa'iideysaan waa waajib idin saaran adduun iyo aakhiraba ummadii islaamka ee xadaaradii dunida bay la wareegeen carabtii badowga ahayd ee reer miyiga ahaa baa xadaaradii adduunka la wareegay islaamku wuxuu soo gaaray marka Soomaaliya quruntii barakaysnaa ee hore koodii ugu horeeyay qaxootigii asxaabta ahaa nabiga calayhi salaam asxaabtiisii markay ka soo qaxeen dibkii Quraysh ay ku hayeen oo ay soo aadeen dhankan Ethiopia waxaan shaki ku jirin badda cas inay soo mareen aqligana wuxuu keenayaa badda cas meesha dhulku isugu dhow yahay inay ka soo gudbeen waayo meeshaas labada dhul ay isaga dhow yihiin iyo bani aadamku weligiis mar walba raadsada kow dhulkana inta waa isaga dhowaa waagaas inta hadda ay badda cas labadeeda daan isu jiraan waa isaga dhowaayeen awalam yara alladina kafaru anna as-samawati ay ayad kale yahay maxay ahayd awalam yara alladina kafaru miya ayadana anna nanqusu al-ardha min atrafiha ya magaras adiga inta waa isaga dhaweyd dhulka waa cuntamaya waa si kala sikanaya wadu waa balaaranaysa waxaan marka shaki ku jirin in meesha dhulku isaga dhow yahay ay ka soo gudbeen meeshu isaga dhow yahayna Eritrea maahe waa dhulku Soomaalida degan ama Djibouti ama Zaylac iyo eriyadaas sida darteed islaamka xilliga horuuna soo gaaray markuu na soo gaarayna maalinba meel buu marayay asxaabta la tuhmaya inay Soomaaliya yimaadeen waxa kamid ah Abu Musa al-Ash'ari
iyo caliy ibn abi aalib radia allahu canhuma waxaa kaloo jiray xilligii cabdilmalik ibn marwan dad koonfur deganaa oo muslina oo sakadii diiday ciidan buu usoo diray ciidankaasi koonfur markay yimaadeen waa degeen mayan laaban si rasmiyay u degeen dadka cadcad ee koonfurta soomaaliya deganaa qaar baa ka soo jeeday dhacdadaas dadkii la socday kow islaamkii markii uu marka hana qaaday waxaa dhacday in soomaaliya ay aada u daneeyaan carabtii ilbaxa ahayd dadkii inoo yimid dalmareenno badan oo carab ah ayaa ka mid ahaa alyacquubi dalmareenka la dhaho wuxuu noo yimi qarnigii sagaalaad ciise dabadi almascuudi wuxuu noo yimid 933 markay taariikhdu ahayd nin walbana qoraal buu ka qoray intuu doono hal leekaade al-istakhri wuxuu noo yimid 960 ciise dabadi alhawgal wuxuu noo yimid 977 albaruni wuxuu noo yimid 1030 al-idrisi wuxuu noo yimid 1154 الياقوتي وحو نو يمي 1226 ابن بطوطة وحو نو يمي 1331 الهاروني وحو نو يمي 1334 ابن السعيد وحو نو يمي 1344 waxaasi waxay ahaayeen dalmareen carbeed iyadana waxay muujinaysaa taariikhdeena inay tahay taariikh fil weyn aynaan ahayn dad shalay galab iyo daraad galab meel kale ka yimi oo koyta taariikhana sida dhulka uu dadka isugu hayo afka iyo dhaqanka iyo diinta ay dadka isugu hayaan taariikhdana waxyaabaha dadka isku haya kamid tahay gobolka Hiiraan iyo gobolka Baydhabo ma dhici kartaa Hiiraanna in la goosto badweynta India lala aado bayna in la goosto Atlantic lala aado suuragal ma waa la isku khasban yahay halkaas la wada degan yahay marka waa waxyaabo dadka isku khasbaya oo xataa hadduu aqliga xumaado la diriro misana in la helo ay khasab tahay maalin aqligu fiican yahay oo la heshiyo yaa waa صح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله waxyaabaha isku khasba waxa uu weyn waa aqeedada weyn wixii kale adkeynayna kamid weeyaadeer afka kamida ninka Bakistaaniga waa nin muslim nala laakiin Lahore buu degan yahay anna xamar jabban ku dhashay nin Lahore degan ninka hawlwadaag degan baa iga xigay waayo wuxuu ila wadaagaa dukaan iskuul baan wada aadaynaa suuq baan ka wada adeeganaynaa waa sax aqeedadu dadka waa waxa ugu weyn oo isku khasba laakiin dhulkii iyo afkii iyo taariikhdii iyo kulli waxay adkeynayaan midnimada ummadeed socdaalkii carabta waxa weheliyay wax la yiraahdo silk road طريق الحرير taariikhda dagaaladii dhici jiray aadamigu dagaal ma dhaxmaro ilaa dhaqaalu ku salaysan yahay haddaad aragtid dagaal siyaasadeed dhaqaala ka dambeeya haddaad aragtid dagaal diineed dhaqaala ka dambeeya haddaad aragtid dagaal ideology dhaqaala ka dambeeya dagaal dhul dhaqaala ka dambeeya aadamigu dagaal ma dhaxmaro ilaa bayskiisa wajigu doona ha lahaado dagaalku waa kala wajiyo duwan yahay laakiin asaaska conflictiga dhaqaale way nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dagaalkii badar oo dagaalkii ugu khayr badnaa dagaalada sida aanu rumaysanahay uu nabiga alayhi salaatu wasalaam wax ka hogaaminayay sababta conflictiga shuclada shiday maxay yahay dhaqaale xoolahoodii maka laga soo biliqaystay oo ay ka yimaadeen yaa inta rag awr saarsadeen shaam ka soo iibsadeen markaasay wax ku soo gateen badeecad alloora badeecadan la soo gatay waa alaabtii gurigeygii tiilay xaq bay u lahaayeen inay weeraraan inkastoo dagaalku dagaal caqiida ahaa oo qurayshtii mushrikiinta ahayd iyo asxaabtii oo nabiga hogaaminaya alayhi salaatu wasalaam u dhaxmaray misana dhaqaalu ah dagaalkii tataarka oo aad aragteen ka yimid bariga dhulkii islaam ku soo baahay
dhaqaala u sababaha dagaalkii saliibiga Crusaders dhaqaala u sababaha marka Silk Road waxaa la dhahaa wadadii xariirta waa wado isku xiraysay ganacsiga adduunka ganacsiga isaga ah waxaa la daneynayay gaar ahaan Yurub waxay daneynayeen waxyaabaha cunnada ama maceeya ama kaydiya cusbo xawaaji filfil basbaas haddii alla kura waxyaabaha buharaadka ah ee raashinka lagu daro si raashinkii uu ama ugu kaydsamo ama u macaanaado waxyaabaha ay soo dhoofsadaan reer Yurub qarnigii 15aad kala bar cusbay yahay marka waxyaabahaas badanaa India iyo China laga keenayay wadooyin marka waxaa jira ganacsigu uu maro dib badan bay ku qabeen waayo wadada magaalada Venezia la dhaho oo bariga Italy ku taal dhibicda buluuga meesha ka bilaabanayso magaalada Venezia la dhaho uu ka soo bilaabanayay waxa yaab leh magaaladaas qaaradda Yurub oo dhan iyada support gareynaysa ganacsigeeda xilli waxa jiray magaalada kaliya ay xiriir la lahayd qaaradaha adduunka oo ay support gareynaysay ninkii ugu horeeyay oo ku dhoofa wadadaas wuxuu ahaa Marco Polo iyo aabihiis iyo adeerkiis dadka Venetianka waxay ka hareen boqortooyadii imbraadoriyadii Roma oo burburtay si u soo baabaysay magaaladaas ay ku hadhay wax 150 sano 200 sano ku dhow ba magaaladaas kaliya waxa ka jiray maamulkii boqortooyadii Roman Empire marka xadaaradii bay haystaan dadkii kale waa reer miyi iyaga kaliya safrayay oo halka tagayay wadadaasna sir bay u ahayd waa qarsan jireen mayan sheegi jireen dadka reer Yurub ma sheegi jireen hantida iyada ah ee wadadaas marta badanaa waa la kala bar waa la dhici jiray waayo waxa dhex maraysa ummado Ilaahay og yahay tiradooda oo kala duwan socdaal dheer intaasoo kun oo mayl oo socda awr baa lagu rarayaa markay xeebaha timaadana dooyaa qaadaya Silk Road wuxuu ahaa wax sir ah nimankaas waxaana loogu bixiyay nin Chinese ah oo dhulkan ku sahmiyay waa laba boqortooyo ay haysteen ba markii mid laga adkaaday TC buu ganacsi iska galay dhulkii uu ku sahmiyay buu ka ganacsan jiray waxyaabaha uu ka ganacsada xariir baa u horeysay Shiinaha markaa waxay ku hormareen farsamada xariirta sidaa darteed meelahaana lagama aqoon aad baana looga baahnaa ganacsigii uu ninka bilaabay waa soo durkay Persian Empire buu soo gaaray Pershiyiintiiba aad u daneeyay xariirta markiiba ganacsi boomina buu noqday xariirtii iyadaheed waa sii socotay reer Yurub baa daneeyay wadadii marka waxa loo bixiyay wadadii xariirta Silk Road wadada uu maro ganacsiga caalamiga ah qaar Masar bay imaan jireen badda casbi ku soo raaci jireen halkaas ka bixi jireen waa kala bixi jireen qaar India u sii socon jireen qaarna geeska Afrika kuwa India aaday baa qaybsami jiray qaarna halkaas jaana ka soo gali jireen qaar dhulkay mari jireen Marco Polo marka aabihiis iyo adeerkiis oo soo noqon waayay buu raadiyay wadadii uu ku lugeeyay oo ka soo laabtay waxa jiray Venezia iyo Verbia reerkii Venezia deganaa iyo Verbia reer degan baa dagaal xoog leh dhex maray Marco Polo dagaalkii buu ka qayb galay maxbuus ahaan baa loo qabsaday 10 sano xiraa 10kii sano uu xiraa buu wuxuu ka waramay marka xabsi qol ku jidho adiga iyo qofka kula xiran sheekado idil waa idin ka dhamaanaysa saas ugu waramaysa marka waxa bilaabanaysa wixii sirtaa in la sheego
waddadii sirta ahayd Marco Polo ninkii saaxiibkiisa oo maxbuuska ah buu uga warramay ninka isaga abaa buug ka qoray sheekadii Marco Polo xabsiga intuu ku jiro buug ka qoray buuggii baa hadda la nashriyaa laga sheekay taariikh buu noqday wax rasmi ah oo la hayo oo maaragtay waxtar leh filimay ka sameeyaan rixladii Marco Polo waddada xariirta ah marka Venetianku magaalada dadka degan dad waxay ahaayeen aad maaragtay u dhib badan u shida badan maadaama ay ka ilbaxsanaayeen dadkii Yurub xilligii dark age ya asru dhalam xilligii mugdiga oo Yurub taariikhdeeda ku noqotay dhibic madow ya door bay ka qaateen nimanka Venetianka dhibic madow مثال waxaan u soo qaadanaynaa indulgence maxaa la sagcatul ghufran ya indulgence aragtidan ah wadaadku inuu cafiyo dambiga qofka rayidka ah kun iyo kun iyo 300 bay ahayd something baa waxaa shiray wadaadadii Catholiga ahaa waxay isku raaceen in culimada la siiyo awood ay wax ku cafiyaan loo baahan yahay ninka sheekha ah inuu dadka dambiilayaasha dambigooda cafiyi karo waa la isku raacay taa iyada waxay gayeysiisay mujtamacii in baadariyaashii ay baadaan dambi baad galaysaa haddii rabto inaan ka cafiyo keen maaragtay wax hantida qofku keenayo waxay la beegtahay dambigu galay intuu leegyahay dambi weyn qofkii gala hanti badan baa laga rabaa waxa laga yeeli maayo aragtida iyada aad bay u fakatay waa xoogowday de waa dhac burcadnimo way bani aadamkuna sidiisaba hadii xeer celiya oo san jirin aqli celiyana oo san jirin waa iska dugaagaas u lamid yahay arrintii iyada heedsay u socotay waxay gaadhay in qofku intuu sheekha u yimaado oo dhaho sheekhow dambi baan rabaa inaan galo meeqaan bixiya macnaha iska bixi wax weey markaas waa si qadimanaysa wax bixintii awal waxay ahayd dambi markuu ka dhaco in lagu cafiyo waa la qadimayaa dambigaasaan rabaa inaan galo meeqaan bixiya inta iska bixi qofkii xor weey inuu iyagana fursad siiyo dhaho ordaya tuule hebel aada soo cafiya marka waxay noqotay isku dul noolaansho rasmi ah hawl shida badan oo mujtamaci wax keena shayaadiin baatiin keena si leedii cafiyo kulli hantidii baa la wada yaa ninka la dilay wuxuu yiri ninka nin philosopher buu ahaa waxaan wax soconaya ma sideedaba ninka baadariga ah ha ku ekaado diintiisi haddii ileen diintii laga dhigo aqli iyo masaalix maslaxadu xad ma leh bani aadamku waa iska dugaagaas u lamid yahay waxay dhihi jireen xertii Soomaalida Quraan ka kooyne Quraan injeedne kiishko ko saara ya idin kabaal meel fog baan waa ku xadreynayaan reer bay ag dhiganayaan ii sheeg waran ku mudanayaan Quraan ka kooyne Quraan injeedne kiishko ko saara idin kabaal dadkii masaakiinta reer miyiga ah waxaasay diin u qabaan markaas xoolo loo qalaya bakaaraha jawaanadii ugu jiray la siinaya macnaheedu waa meel fog baan ka imid meel fog baan u socdaa kiishko saara halaysiyo inta way macnaheedu marka waa nooc waxaan la nooca way nin weyn oo qowsaar oo shaqaysan kara oo inuu beer fasho ay yahay inuu shaqaysto ay yahay inuu mujtamaca isaga wax tara ay yahay isagii baa parasite mujtamaci ku noqonay John Haas ninkan Czechoslovakian buu u dhashay Czech buu u dhashay markuu fikradda soo jeediyay waxa lagu xukumay inuu diintii ka baxay sidaa darteed hal la dilo hana la gubo baa la yiri adiga portrait-kaas baa laga sameeyay taariikhiga ah waa kaasa marka haddaan u laabano Silk Road
silk road nimankaasu u xaraysnaa wuxuu ahaa arrin iyaga keliya u kaydsan annagu marka geeska Afrika waxaan ku naalaa meelihii muhiimka ahaa ee wadooyinka silk road ay marayeen waa taasa Afrikana loo soo maro qofkii u socda bariga fogna uu maro wadada iyada kadib markii shida ay kala markay ka shifantay wadadii ganacsiga Yurub xoog buu u soo aaday dhankan bariga shida badan bay kala kulmeen wadooyinkan la marayo kadib waxa dhacday maadaama halkan shida laga kulmay fikrad waxa timid maanu wada kale raadino aanu India ku gaaro fikradii marka Christopher Columbus iyo Amerigo Vespucci iyo ragii sahamada ahaa dhanka galbeedka u baxay ay ku dhaqaaqeen waxay ka dambeysay arintan iyada ninkii ugu horeeyay halka ka soo laabtay marka wuxuu ahaa Vasco da Gama badweynta Atlantiga koonfur buu soo maray koonfur Afrika Cape of the Good Hope Ras Rajal Saleh uu ka soo laabtay saasu India ku gaaray dabayaaqadii 1500 markaas waxa bilaabatay Portugiiskii inay dhaqdhaqaaqoodii ganacsi uu ku soo bato badweynta India waayo waxa la helay meel nabad ah oo ka shida yar walow ay ka socod dheer tahay laakiin hantidii waa ku badbaadaysaa wadadan dheer oo marba aad qabiil ku dhacaysid bahal afkiisa oo ku balliqaysanaya aad ka dhuumanaysid shidada miirana wada badaasa la helay oo India lagu gaaro ganacsigii lagu keensado waxa marka dhacday dhaqdhaqaaqa markuu bilowmay dadka Soomaalida ah sidoodaba markii diinta Islaamka soo gaadhay xadaarooyin baa u curtay xadaaradahaas bilowgii waxay ka curteen area-da Harar waxa soo degay qoysas Khalid bin Walid ku abtirsada markii Amawiyiintii xukunkoodii uu dhacay oo ay Cabbaasiyiintii la wareegeen magaciisa imaamkii u horeeyay Cabbaasiyiinta hebel Safaax baa la hijiray in aad dhiiga u daadiyay oo dad badan laayay dadku laayay la cadad wala xisaab aad buu dad u laayay way soo qaxeen marka dadkii Amawiyiinta ahaa Amawiyiintii meelahay u soo qaxeen Harar baa kamid ahayd halkaas waxay ka curiyeen sanadkii 600 bayay markay soo degeen imaarado yar yar oo aan cimri dheer helin laakiin imaarada sideedaba bani aadan ilbaxnimo hadaad aragti waa dad ururiyo ishabeeyay dad gudahoodii ishabeeyay waayo dad kala daadsan weligood ilbaxnimo ma curiyaan qoysaska iyaga maadaama ay dad ilbax ahaayeen imaarad bay samaysteen nolol bay abuureen dishibilin iyo kala dambeyn leh imaaradahaas waxa kamid ah imaaradii Aifad waxa kamid ah imaaradii Aikad waxa kamid ah imaaradii Eastern Shawa Sharqiya waxa kamid ah imaaradii Awdal imaaradahaas oo dhan Soomaalida dadka Soomaalida hadii wixii taariikh aan lahayn aan saa u soo taxno waxaanu helaynaa dad cimri dheer leh inaan laakiin nasiib darro wixii hadda Ethiopia oo nala darisa ma jiro laba boqor baa ka jira oo aabayaashood ka dhaxlay xukunka intaas way inqilaabayeen Tigray baa soo duulaya wuxuu leenayaa xabashidii baa duulaysa waxay leenaysaa Tigraygii xukun aanan dhig ku daadan ma jirin laba nin maahay oo aabayaashood ka dhaxlay laakiin waxoodii bay habaysteen waxay dhaheen 1000 sano aanu jiraa 1000 sano yaan jiraa laakiin dadkan ilma Maxamed Soomaaliya waa geelay shalay galab bay yimaadeen tii iyadahayd baan annagana qaadanay oo waxaanu rumaynay inaan shalay galabnimo inaan taariikh lahayn Aifad waxa curiya waxay ahaayeen uwayaashayga
oo ikad waxa curiya waxa ahay wayaashaya oo awdal waxa curiya waxa ahay wayaashaya oo haddaan taariikhdaas dheer aanu soo taxno oo wixii ka horeeyayna aan dabada ugu qabanno wixii ka dambeeyayna aanu dabada ugu qabanno saldanadii ajuuraan tii majertinya tii wiilwaal tii maxay ahayd begadiga tii haddii alla kuuron yahay imaamadii abgaal aan saa u taxno waxaanu helaynaa inaanu dad cimri dheer Ethiopia ka cimri dheer aan oo xaqiiqa laakiin nasiib darro waanu kala jajabsanay nin walba gabal doolshaa uu qaatay ummadnimadii baan waxaan ka raadinaynaa reer gudihiis nin waliba reer gudihiis buu ummadnimadii ka raadinaya yani wax suuragal ah wallahi inayaan ahayn wallahi waa dadku oo qabiil u noolaa waajida oo qabiilku uu calan yeelan karo boqor yeelan karo taariikh samaysan karo waayo adduunka dhan baa saa u nool laakiin maanta waxaanan dhici karin qabiil kasto Soomaaliya inuu United Nations-ka kursi ka helo calan yeesho madaxweyne helo dhaqaale madax banaan helo ciidan dhulkiisii difaaca helo waa hay'ad ummadahan wixii aanan isku qaadan ma jiraya bal ummadihii baa isbahaysanayo blocks baa raadinaya blocks Europe oo dhan baa barlamaan yeelatay markaasa xataa waxa la yiri war afarta luqado u waaweyn aan barlamaan kaga hadal ma yeelay waayo Bosnia luqad bay leedahay bal saddex luqad bay ku hadlaan barlamaanka Europe ninka Ingiriiska markuu khudbaynayo mutarjim Ingiriisa baa lacag la siiyaa oo ninka dhigaha wax ugu jira uu dhageysanaya Isbaanishku markuu hadlayo mutarjim Isbaanisha u fadhiya German markuu hadlayo mutarjim German bal imisa kharash baa ku baxaya Czech markuu hadlayo Slovak markuu hadlayo Swedish markuu hadlayo Norwegian markuu hadlayo waayo waxay garteen hadeeyan saa yeelin ay yeelan maya waa garteen inay ku khasban yihiin bay arkeen cid kasta oo Europe waa u turjumeynaa bay dhahan soo fariisto cid kasta oo Europe marka Soomaalidu taariikhdaas dheer ee quruxda badan bay leeyihiin laakiin wax isugu dabaqa qabta oo uu sheega oo bara ciyaalkii baana jiray horeyna uma aanu helin haddana ma muuqato inay soo socdaan waxaa dhacday imaaradahaas taagmeeyan helin ay ku hana qaadaan waa curteen mid walba waa iska shiiqdo baabaaday tii Eastern Shower baa u hor curatay waa baabaaday tii ay kad baa ku xigtay waa baabaaday tii ay fad baa ku xigtay waa curatay waa baabaaday tii awdal baa tii awdal marka waxay la kulantay shiddo boqor waxaa jiray Ethiopiana xabashiya oo aad caniid u ahaa oo soo weerari jiray Soomaalida ninka isaga ah sanadkii waxa la siin jiray hanti aanan hadda qiyaasteeda sheegi karin hantida waxa kamid ahaa xataa gabdho dhalin yar oo la siin jiray hantida kamid ah ninka xog badan soo doono kula dhaqmaya Allahumma la tusallid alayna man la yakhafuka wala yarhamuna boqorka isaga 1420 dagaal waxa la dhihi jiray Najash Yashaq 1420 dagaal uu Soomaalidu la galay oo uu jabiyay wuxuu noolaa 1420 dagaal uu ku jabiyay Soomaalidii ayuu gabay ka tiriyay gabaygiisaas waxa ku xusan magaca Soomaali oo qoran qoraalka ugu daada weyn oo la hayo waa gabaygii ninka uu tiriyay ana magacan Soomaali inuu jiray xilligaas markuu ku gabayayo Soomaali baan jabiyay that means boqolaal sano horteedna Soomaali waa jireen kadib wax yar kadib xilligiisii
معناها تقريبا قرن وحكير أحمد قري باعرتي ويلو دشيب وها قبل كاس مركزي هو إمام ماهين لكن ننفر فرعون والدين له وحو لصبحي ددال زيادة ددال كيساس وحو جيسيي إنه الصومالي أردن أضيء النقطة صقوا ويل لنيره أضيء نمدي سي والقول ليباني وحكان أي نسكعل إنه يري ددال بدن بوجالي إنه ضد كي مدايا مركبره ددال مدايا سنة وحبس كم علم كلام هاي قريه النيب على بالقيسانة يا هذا تاجنوا سوجي ده وحبس كم علم كلام لكن مركي عاد عدود ليده قرب ليده هاي بعد هيبد ليده أحمد قري أحمد ابن إبراهيم الغازي بعد بوجاك تكوار كيسان الغازي وقف عربي غازي ودولنة من دولية دولانة غزوة إرجع سكيمة الغازي وكونيا نيناسوي ضد بدن باشكي جالية أحمد قري إنه الصومالي وايو شن إلا لح ومضاد بانوجه هيستا وردها يا نينا كان النجوة تركيا واحد ترى هذا أحمد قري نين تركيا أبوها وعثمانيين تكسروا إريتريا واحد هذا إريتريان مسلم أبوها السودان واحد دهان السودان بوها أورمادو واشكتان واحد دهان وحو أهانين أورما عفرتو واحد دهان عفر بوها يمنتنا واحد دهان يمن بوها الصومالي ده شكي بك جدا dadkii u dhashay oo ahaa shaki bay geliyeen Axmed Gurey oo Soomaali ba caadi waa isweydiinaa ninkan Soomaali ma yahay mas'amay Sooma annagii baaba shaki gelinay yuu yahay marka ninka ku ogolaanaya nin haliyay ee taariikhda galay ee kutubta ugu hodansan ee macluumaadka taariikhiga ee geeska Afrika yuu yahay ninka ku ogolaanaya Axmed Gurey nin Soomaali ah تاريخ ذا مدعين عيدا أمداد ما هو عيدا بيل أما قبيل أما جفي عيدا أمداد إنن ميل كالكيم أو كويتا وإنتو اسكدو بريتو دقال انتاسو السنة السعودي قليو تاريخ ذا هرانا ومدعين دبنا ودعين معه نينك كويتا ذا هدونين أقول ليه علمي قوالا قبرتا هدونين دقالة وذيه أو قناعسي يقلايا ولا سودوية لكن نين أجنبية إنه leadership أمضيت قط ولبا أمض وحي أي آمن سند يرضاقن كذي يدين تذي يقدر رئيس وعدو السجرينها ولا درس لا درس إنه هجامية نين أجنبية تاريخ ذاكم حسنا أنت سهرت كفلا عدي إنه وقبصت وحاوهلية بوجا مركز آخر السد قبائل كالصومالي دورن واكو حسين قبائل كالصومالي دورن إمام كوال حليليا ريهب البو وراق الدري ريهب البو خطبيي ريهب البو مسؤول كودي حري انتو عند شبلينات النقضي كل واتكو أركيس لكن إمام كرير كيسي لغو ما حسن بوكا وارون أو لغو ما حسن إمام كبوجي سي لقوم حسن إمام كرير كويه إن الله حسن وابا نوفي عنتها وايو هدين لحسي لها دقال كان سكية يعلادان خلاف كان بودح قلي لها ضد بدن باتوري لها ضد كي أن لقبي لهين تاريخ ضد بدن باتوري لها وانكري لها مركا حكمة إلهي يا بنوجد لا إن الله حسن مركي هذا خريسيد ما لبدن بعد أركيسا هرت محانا الله حسن وحانا الله حسن غني عن التعريف ما مغشان هبل غني عن التعريف إمام كان نين لو ذا يقان بوها لكن رهبل نينك هجامين أيه نين لا يقان ما ضد بدن ولا ما قاعجره مركي وده هبل با ساير وإنه الشيء هبل ورهبل إنه راعيه يا تعريف كسيداسو وحسي أما إمامك بهالله إمامك بحق مرة إمامك بساير كفى إن ما ركتي هذا الكاس نكير وياهي أحمد قري حتى أحمد قري كلاجرة
وهو قامياشة كمدها وريرك هبرة ولا أول شيء وحسيا أحمد قريقاس أما كان موسى حسين صوته وغني عن التعريف مال يربان إدين شيء وأن كآخرية أن حسسته نينكا الصومالي نمدي سينو عدينا السه مر أي مال بالية آد وين وأن لقى جود بكرين بيبضنا أي مادين إمام كباه الله يوحي ليه أنه بعد ما نكان سيد الله راعو قيل بانو دقنا لمن كي مهرجة هبوليه الناس تماي الدنيا أن كجو جودبنه بدتا النجا معنى هذا ما النجا قيل بان دقنا النجو قيل بان دقنا هو الصومالي هذه مركلة الدراسة يبوجا ما لا بدن بالهلايا أو كومو جينا إن ونينا كان صومالية أوكي أحمد قري وحكوبه ليستي إنه أمد الصومالية أمدهان يسوروريه ويسولوا الدودان إن مركز أيو دولان كيسي قاضي هل دجال بأنه حسينا دجال الذي سكمده وقتجينا وانا هيا دجال كاسي شمبرو كوري باليره هذا wuxuu dhacay 1529 qoraalka dagaalka ka sheekeynaya wuxuu leeyahay habeen arbacaa ayaa ciidankii waxay ku hoydeen buurta shimbira koreel dhaho habeenkaas oo dhan quraan bay akhrinayeen oo ana duceysanayeen imaamkii khudbad dheer buu habeenka akhriyay wuxuu yiri waxaad ku laazintaan sabir ilaahayna tala saarsada askartii imaamkii ballan bay siiyeen inay si wanaagsan u dirirayaan adeecayaanna sidoo kale boqorkii abasiiniyiinta ciidankiisii buu isna la shiray khudbadu u jeediyay oo ka codsanaya inay si wanaagsan u dagaalamaan ciidamada abasiiniyiinta waxay dhamaayeen 200,000 fardoolaydoodana waxay dhamaayeen 16,000 ciidamada Soomaalidu waxay dhamaayeen 12,000 fardoolaydoodana waxay dhamaayeen 560 ninka buuga qoray wuxuu leeyahay labada ciidan markaad isku fiiriso waxaad moodaa buu yiri dibi madow oo dibi dhogor madow oo dhibic cad korkiisa ku taal dibi dhogor madow oo dhibic cad korkiisa ku taal adigu dagaalkii subaxdii dhacay ilaa casarkii ayuu socday dagaalkaas isaga ugu dambeyntii guushii waxay raacday Soomaalidii waxa kaga dhintay Soomaalida nin la yiraahdo Kabiir Ibrahim iyo nin la yiraahdo Fiqi Maxamed Daw oo ahaa muadinkii imaamka waxa kalo dagaalkaasi wuxuu ku dhamaaday in guushii ay raacday dadkii Soomaalida ahaa intaas aanu ku